kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada aan kugu helno waxaa qayb ka noqon doona taliyaha Samahad Maxamed Salaad oo Muqdisho ka wada abaabulkii ugu dambeeyay iyo qorshaha ka dhanka al-shabaab oo lagu soo afjar lahaa xilli uu la kulmay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. wararka ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa Maxamed Salaad ee ka dhanka ururka al-shabaab ayaan soo gudbin doonaa. waxaa kaloo idin soo gudbin doonaa taliska Darma ayaa sheegay in al-shabaab ay haystaan hal fursad oo keliya, haddaba fursadaas ay haystaan maxay tahay warbixin gaar ah ayaan kaga helnaa. gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu qorshihii ugu dambeeyay ururka al-shabaab ee deegaanada gobolka Hiiraan sheegay sidii lagu soo gabagabeyn lahaa. macluumaad kala duwan ayuu bixiyay Cali Jeeyto Cusmaan. waa daawo doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah arrimaha gobolka. waxaa kaloo idin soo gudbin doonaa Ilhaan Cumar oo markii saddexaad dib loogu doortay koongareeska dalkaasi Mareykanka taariikhna gashay. qodobadaas ku faahfaahin doonaa wararka arrimaha caalamka diblomaasiyadda. fadlan muuqaalka like saarsiino share gareeya si saaxiib badan u gaaro subscribe-ka noo dhaha aad baad u mahadsantihiin. had iyo jeer si aad nala socotaan. waa maalinimo Arbaca ah 9 November 2022. warkii oofisana taliyaha Samahad Maxamed Salaad ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka wadaa warar dhaqdhaqaaqi ugu dambeeyay ku aadan arrimaha looga hortagi karo argagixisada al-shabaab. Mahad ayaa ka qayb galay shir muhiim ah oo looga arinsanayay sidii looga hortagi lahaa dhaqaalaha ay al-shabaab markaasi ka hesho gudaha dalka. shirkan oo ka dhacay xarunta wasaaradda maaliyadda waxaa kasoo qayb galay madaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrimaha maaliyadda sida bangiyada iyo xawaaladaha dalka ka jira. sidoo kale waxaa ka qayb galay shirka wasiirka maaliyadda, ganacsiga, cadaaladda, xeerlaaliyaha guud iyo gudoomiyaha bankiga dhexe, agaasimaha xarunta FRC iyo taliyaha NISA. wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi Maxamed Nuur oo shir gudoomiyay shirkan ayaa sheegay in dhinacyada ay si adag ay ugu wada hadleen sidii wadajir looga wada shaqeyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dhaqaalahoodaba loogu difaaci lahaa wax loogu yeero argagixisada. shirkan ayaa daba socda kulan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo kahortaga maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada, kaasoo 2 maalin ka hor ka dhacay madaxtooyada. madaxweynaha ayaa faray guddigan in la dardargeliyo qorshaha ciribtirka khataraha maaliyadeed ee dalka loogu diyaarinayo in uu ka gudbo qiimeynta hay-adda la dagaalanka khataraha maaliyadeed ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. dowladda federaalka ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo ay ku dooneysay inay meesha ay ugu saarto lacagaha ay al-shabaab gaar ahaan ay ka qaado ganacsatada, iyadoona mamnuucdo in wax dhaqaalaha markaasi la siiyo dagaalamayaasha al-shabaab. shirkan ayaa waxa uu yahay markaas mid muhiim ah xilli markaas al-shabaab ay wajahayaan xaalado dagaal iyo dhan kasta oo markaa loogula dagaalami karo dowladda dagaal culus ay kula jirto. dhinaca kalena haddii aan eegno gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyto waxa uu bixiyay tafaasiil dheeraad oo ku aadan dagaalka gobolka Hiiraan ka socda oo asiga mar horeba iclaamiyay isla markaana ay hoggaanka u hayo. Cali Jeeyto oo hogaaminaya dagaalka lagu xoreynayo gobolkaas ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho wuxuuna faahfaahin ka bixiyay qorshaha socdaalkan uu yimid xamar. gudoomiyaha ayaa sheegay inuu doonayo in wax laga bedelo qorshaha dagaalka lagu soo afjarayo al-shabaab maadaama buu yiri ayaguba ay bedeli karaan qorshahooda dagaalka, wuxuuna qorshihiisa la wadaagayaa madaxda qaranka sida uu sheegay. 5 bilood ee la soo dhaafay waxaa gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ka socda dagaal u dhexeeya qaar ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed oo kaashanaya dowladda federaalka iyo al-shabaab, kaas oo reer Hiiraan ay guulo waaweyn ka gaareen meelo badan oo in muddaha al-shabaabka ay ka tilinayeen laga saaray. Cali Jeeyto ayaa sheegay in Muqdisho uu yimid inuu la kulmo madaxda dowladda federaalka si qorshihiisa dagaalka uu la wadaago iyo baahiyaha ka jira deegaanka ee dowladda federaalka aan loogu maarmaynin. safarkaygu wuxuu ku saabsanaa maadaama waqtiga dheer aan ku jirno dagaal waxaa dowladda la wadaagayaa macnaha uu sameeyay dagaalkii aan galnay, waxaana jira waxyaabo aan ugu baahanahay dowladda federaalka ayuu yiri Cali Jeeyto. gudoomiyaha oo wareysigan siiyay warbaahinta VOA ayaa sheegay in dhul aad u baaxad weyn ay ka xoreeyeen kooxda, balse hadda ay ku hareersan yihiin deegaano yar oo dhinaca galbeed ka xiga webiga Shabeelle ee mara Hiiraan. gudoomiyaha ayaa beelaha Soomaaliyeed ugu baaqay inay shabaabka iska dulqaadaan, isagoo u ballan qaaday garbisaag iyo inay markaasi kooxda ka xoreey doonaan meel kasta oo dalka ka mid ah. shabaab oo lagu guuleystay Hiiraan waa in Soomaalida ay wada guuleystay buuri. mar haddaan Hiiraan xoreyno waxaa gacan ka geysan doonaa si loogu xoreyn lahaa gobolada kale ee dalka. inkastoo aan Hiiraan bis mas'uul ka ahay, haddana waxa uu diyaarsanahay buuri xoreyn qaran oo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed aan kooxdan ka dulqaadno ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyto Cusmaan oo wareysigiisa dhinacyo badan taabanaya qaybta nuxurkaasina aan kasoo qaadanay. qaybihii hore ayaa daawanaysaan janalkeena kulmiska wararka. saaxiibayaal muuqaalka like inoo saara subscribe kuna dhaha siino share gareeya si saaxiib badan oo aad u wanaagsan idinkoo kale aan u helno. waad mahadsantihiin. bal markaana wararka arrimaha gobolka aan aadno
ilhaan cumar ayaa guul taariikha ka keentay doorashadii ka dhacday dalka maraykanka ee koongareeska waddankaasi. taariikhda ayay markale isku qoraysaa gabadhan muslimadda ah. ilhaan cumar ayaa markii saddexaad ku guuleystay doorashada guriga degmada shanaad ee gobolka minnesota ee koongareeska maraykanka kadib markii ay ka adkaatay Cicely Davis oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. ilhaan oo sanadkii 2018 noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali Amerikaan ah loo doorto koongareeska maraykanka ayaa difaacatay kursigeedii. hadal kooban oo ay u jeedisay taageerayaasheeda kadib guushii ay gaartay ayay ku sheegtay in guusheeda ay mid Soomaalida oo dhan u soo hoytay ay tahay isla markaana ay ku faraxsan tahay in dib loo soo doorto. ilhaan cumar ayaa waxa ay tahay gabdhaha faroktirska muslimiinta gaar ahaan Soomaali Amerikaanka waddankaasi maraykanka ku nool ee xilalka kala duwan ka soo qabta ayadoona haatan sii difaacday kursigeedii aqalka koongareeska waddankaasi maraykanka maadaama shakhsiyaad badan ay kula tartamayeen. ilhaan ayaa lagu xasuustaa in ay si weyn u difaacday Soomaalida meel kastay joogaan iyo muslimiintaba taa oo dhalisay in Soomaalida waddankaasi ku nool iyo guud ahaanba Soomaalida kale meel kastay joogaan qurbahana taageero aan kala har lahayn ay u fidiyaan mar kasta had iyo jeer waqtiga ee doorashada ay gelayso. bal markaana haddii aan eegno beesha caalamka waxay walaac ka muujinaysaa xiisadda siyaasadda ee Somaliland ka dhex taagan ee ururada u dhexeeya. wakiilada beesha caalamka ee Somaliland ka taageera dhinaca doorashooyinka ayaa kulan fogaan araga markaas la yeeshay madaxweyne Biixi waxay sheegeen inay kala xawaajoon doonaan arrimaha la isku mar leeyahay ee ka taagan doorashooyinka. xubnaha kulanka ka qayb galay oo gaaray ilaa 10 jir ayaa walaac ka muujiyay xaalka isku murugsan ee siyaasadda Somaliland iyo xasaradaha ka aloonsan maamulka iyo asxaabta mucaaradka. waxay sheegeen in loo baahan yahay in la gaaro isfaham siyaasadeed iyo dejinta dhabbihii lagu qaban lahaa doorashada iyadoona la ilaalinayo xorriyadda hadalka isla markaana ay bulshada ay ka fogaanayaan tacadiyada dhacaya. wakiilada beesha caalamka ayaa hoosta ka xariiqay in doorashooyinka loo maro hanaankii ay dejeen guddida doorashadu iyo inuu madaxweynuhu kulan la qaato xisbiyada mucaaradka. golaha guurtida ayaa dhowaan muddo kordhin u sameeyey maamulka Korneyl Muuse Biixi oo madaxweynkiisu ku eg yahay 13 bisha November oo hadda ay ka harsan yihiin muddo 3 maalin ah. hase yeeshee waxaa arrintaas si weyn ugu soo horjeeda asxaabta mucaaradka oo ku goodiyay in dibadbaxyo waaweyn oo lagu dalbanayo doorasho degdeg ay qaban doonaan wixii ka dambeeyay 13 November taasoo dadka falanqeeya siyaasadda xubnaha kale ee markaas beesha caalamkana ee walaac xoog leh arrintaas ay ka muujinayaan. Korneyl Muuse Biixi ayaa maraya wadadii farmaajo hase yeeshee waa loogu digayaa arrintaas oo tallaabadaas hadduu u dhaqaaqo waaba u dhaqaaqee hadduusa kasoo noqon 13 bisha November oo maalmo ay ka harsan yihiin ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo iyo in uu la kulmo dibadbaxyo waaweyn ay qalaaso maamulkaasi ka dhaca taa oo horseedi doonta in talisku korneelku waqtigiisa soo gabagaboobo. dhinaca kalena taliska ciidanka kumaandooska danab iyo xoogga dalka ayaa sheegay in waqti dhow ay soo afjari doonaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab. taliya ku-xigeenka kumaandooska danab gaashaane xasan maxamed cusmaan xasan tuur ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ku baraarugeen shacabku halis ay ku yihiin noloshooda taasina ay ciidanka ka caawisay inay dardargiyaan howlgallada ka dhanka al-shabaab. taliya ku-xigeenka oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee horkacaya gulufka ka socda gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in howlgalkaani ay kuwii horeba ay kaga duwan yihiin iyadoo shacabku garowsadeen in ay iska dulqaadaan al-shabaab isla markaana ay la howlgalaan ciidamada. howlgalkan waxa ay ugu duwan yihiin howlgalladii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. mar walbaba howlgalku wuxuu sameynayay dad badan oo deegaanka ah oo garabsiya way jiri jireen laakiin hadda kii hore wuxuu uga duwan yahay buuyey bulshadii oo dhan ayaaba u kacday inay iska xoreeyaan nimankan haddii saqiir iyo kabiir yahay iyo haddii qof caajis yahay intaba inay isdhaafin. markaas ayay go-aansan dadka Soomaaliyeed in ay iska dulqaadaan. wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka ka soo jeedinayna daawadayaal wanaag inta